صح اللي ولا ليارو اسلام عن هاي sida inta badan maanta lagu daabacay website-yada wararka Soomaalida xogtana lagu helay fadeexado ayaa ka dhalatay dagaalkii Beled Xaawo askar la laayay iyo qaar la sii daayay dagaalkii ka dhacay degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo ayaa lagu soo waramayaa in dagaalkaas dad gaar ah lagu beegsaday kadib markii ay dowladda federaalku dib ula wareegtay magaaladaasi ila wareeydo ku sugan degmada Beled Xaawo ayaa sheegaya in la dhaawacay tiro ciidamo ka tirsanaa maamulka Jubbaland oo ku waxyeeloobay dagaalkii ka dhacay Beled Xaawo halka qaar kale oo isla ciidanka Jubbaland ka tirsanaana la badbaadiyay Colonel Cabdullaahi Dheere taliyaha hoggaanka dabagalka oo lagu tilmaamo faylka madow ee madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegay inuu amar ku bixiyay in la dhameystiro 13 askari oo ku dhaawacmay dagaalka kana tirsanaa ciidamada Jubbaland kadib markii ay isku soo dhiibeen ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ayagoo dhaawacyo qaba si loo badbaadiyo muuqaalo ay duubeen askar ka tirsan ciidanka ilaalada shacabka ee sida gaarka u tababaran kuwaas oo ka marqata Colonel Cabdullaahi Dheere ayaa qabsaday baraha bulshada muuqaalka ayaa lagu dhex arkayay askar dhaawac ah oo dhulka jiifa kuwaas oo xirxiran waxaana garaacayay ciidamada ilaalada shacabka oo markii dambe la sheegay inay toogteen dhammaan ciidankii la garaacayay hubkana ay ka qaateen amarkan ayaa la sheegay inuu bixiyay Colonel Dheere isagoo ku sifeeyay in ay cashar u tahay kuwa ka soo horjeeda xukunka madaxweyne Farmaajo dhinaca kale Colonel Cabdullaahi Dheere ayaa amar ku bixiyay in la sii daayo wada ay ka baxaan la siiyo 35 askari oo Jubbaland ka tirsanaa kuwaas oo ciidamada dowladda ku hareereeyay bartamaha magaalada Beled Xaawo kadib markii laga taal roonaaday ciidankii Jubbaland oo ay la socdeen mid ka mid ah saraakiishii dagaalka hogaaminaysay ayaa la sheegay inuu ka biyad diiday in ciidanka qaaran la toogto qaaran la fasaxo waxaana loo taxaabay xabsiga isagoo lagu eedeeyay in uu ku dhaqaaqay amar diido xilli dagaal uu socdo sida ay noo xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan xoogga dalka oo magacooda qariyay ila xog ogaal ah ayaa sheegaya in ciidanka la fasaxay ay ku heebahaayeen Colonel Cabdullaahi Dheere halka kuwa la toogtayna la sheegay inay ka soo jeedaan beelaha kale ee deegaanada maamulka Jubbaland arrintan ayaa fadeexad weyn ku ah ciidanka qalabka sida ee Soomaaliyeed in qaarna lagu ugaarsado beelahan qaarna la heebsado oo la badbaadiyo si kastaba ha ahaatee ma jirto tallaabo wali laga qaaday dadkii geystay xadgudubidii ka dhacay degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo